qaar ka mid ah xubnaha guddida horumarinta deegaanka koonfurta bariga ee bartamaha Hargeysa ayaa waxa ay kormeer ku soo mareen deegaanada hawdka iyo bariga halkaasi oo abaaro baahsani ay ku dhufteen waxaana deegaanadaasi ay u kurgalayeen xubnahani ay indhahooda ku soo arkeen baktiga xoolo tiro badan iyo bulshada oo la ildaran biyo iyo baadla-aan xubnahan oo ay ka mid ahaayeen sheekh khadar awxirsi iyo weliba garyaqaan maxamed geljire iyo xubnaha kale ee guddidaasi ayaa waxa ay kormeerkan ay ku gaalabixiyeen tuulooyinka hawdka iyo bariga waana kuwan mas-uuliyiinta deegaanadaasi oo ka warbixinaya siday abaarahaasi u saameeyeen deegaanadooda waxaan la disinayaa xoolo warbixin oo kooban halkan toon la yiraahdaa waxantii waxa ku dhacday muddo imika 3 sanadood abaar baa ku dhacday anigu xogaal weyn baan deegaanka u ahay waqtiyadii roobkii deertida ay xuduudda sare may soo dhaafsaneen toon iyo distriyadan tuulooyinkan imika ku wareegsan magaalada Hargeysa ee beerleydu waxay la mid yihiin dhamaantoodba wixii silax ka soqeeyay waxay la mid yihiin dhibaatada galbeedka haysta abaarta badan ee galbeedka ka dhacaysa waxaad moodaa had iyo goor alle marka baaqyada ama meelaha laga hadlayo in la yiraahdo dhamaan abaartu waxa wada jirtaa galbeed laakiin isku waqti baa ugu dambeysay buqcad wadankan inuu joogno iyo hadii ay badankeeda leeyahay iyo galbeedka isku waqti baa roobka ugu dambeysay waxa arkaysaan halkan haradii weyneed toonba ah baligii weyneed toon la oranayay waxa baliga qura ee lagu badbaado waqtiyada adag ilaa ka jooga ilaa ka bari jooga ilaa galbeed jooga macnaha haradan weyneed toon ma marin jirin hara caana bay ahayd 3 sanadood xagaagii dhowto waxa la cabayay hubiyo ku sii haray hadda way maranta waa qalantiyo dib waa ku sii qaban doontaan kamarada waa ku sii qaban doontaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdirashiid Macalin Muuse waxaan doonayaa inaan ka warbixiyo halkan waa haradii weyneed toon haradan toon taariikhdeedu runtii way fogto aniga way ga weyn tahay baliga waa arkaysaa inuu marin yahay hadda 3 sano roobaheedii waa arkaysaan waa baligii umadu ay waqtiyada jiilaal ku dheeraado ay u ay jirtay hatta 2 sano roob diin waa loo ay jiray hadda 3 sanadood buu maraya inaan biyo baligii soo gelin waa arkaysaan waa uu marin yahay baligan taariikhdiisu baraagta oo dhammi markii dadka dhamaadaan waa meesha ugu dambeysay la wada og yahay ee jiidan koonfurta Hargeysa waa meesha biyo ugu dambaysa baligan waxa ugu dambeeyay ribeerna qaybta aynu joogno oo baligan waa 2 qaybood qaybtan waa qaybtii biyo reeb ku dambaysa qaybtan waa qaybtii biyo geli jireen ribeerin waxa ugu dambeysay lagu sameeyo dawladda Soomaaliya UNICEF iyo hawlaha guud ee Soomaaliya ayaa waagi dawladda Saad Bari ay jirtay baliga dhoob qaaday waxa ribeerin oo ka dambeeya ma jirto waqtigan ay ku jiraan runaantii ummadda gebigeeda waxa ku filaa deegaanadan ku nool baligana loo ribeerin garaa ku filaa hadda wuxuu soo aasan baligaasu ugu yaraan 4 mitir uu soo aasan ummadoo dhammo way taqaanaa baligan taariikhdiisa iyo nidaamkiisa wax qabad oo qaad reerka guuraya saxaysi saddexdiiba juuq waa la yoran waa saddexdiiba waa soo celiya saddexdiiba waa kuwa ariga ku jira ariga iguna waa inta waa misa magaalada waxa weeyaan tuulaha qool caday waxa ka jirta biyo la'aan fara badan dhimriyaale anigana waxa Cabdi Ismaaciil Baale abaartu aad bay noo haysaa abaartu xagga xoolaha aad noo idinkaaba deendii waxa la nuugay indhihiisa oo macallina abaarta markaan deedii sheegno aad iyo aad bay qararkeedu u xun yahay abaartu 2 sanadood bay dadkan way haysayo waqooyigan ilaa xadka loo gaaro abaartu 2 sanadood way dhahay dad iyo xoolaba way saameysay biyo badba way dhamaadeen oo gaarkayo xoolaha imka warwareegaya halka maraya raashin doon weeya codka magaalada Kaanti degmada ka tirsan Salaxda halka waxaan idinkaga waramaya magacaygo ah Maxamed Control inta ka bacdigeed halka waxaan idinkaga waramayaa adduunyada imka waxa ka jira waxyaabaha abaaraha ka dhacaya dawayna haysa laakiin dhulka waanu dhaanaa anagu barkood السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كام كان وين كوحة؟ كام كحدود هي علينا كوحة وين؟ الدنيا
laanqayrta waldhuxulaale markaan ka warramo xaaladda beesha amba deegaanka waxa weeye dadku dee xoolu meesha ku haystaa waa xoolo dhaqato camal kale kuma hayaan xoolihii waxaa ku dhacay abaaro badan isdaba jooga xaaluf ah xanuuno fara badan baa ku dhacay magaca laanqayrta celiyo magacayguna yahay xasan oo maxamuud ismaaciil haddaan ka warramo abaarta iyo farsamadeeda. assalaamu calaykum waraxmatullah. halkan waxa weeyaan magaalada la yidhaa Ballimataan. aad iyo aad baan u wanaagsanay, ilaah baa mahad leh. waxaase jira abaar dad iyo xoolaba abaar baa jirta. abaartaasu way 3 jirsatay, sanadkii 3aad bay maraysaa. magacaygu waa maxamed axmed cilmi. tuuladuna waxa weeye Balli Ciise la yidhaa, waxa ka tirsanta degmada Salax. markaas ay idinkuba arkaysaan deegaanka ama soo aragtana ma imkuba arkaysaan abaar badan baa ka jirta oo nooc walba leh. xag biyooda haday tahay iyo xag daaq haday tahay iyo xag deeb garanaysaa kulayl iyo nooc kastaba abaarta baahsan baa ka jirta. bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ayaa abaaraha ka sokow waxaa saameyn taban ku yeelatay xoolahoodii oo aan iib lahayn.